beesha caalamkana sheeday ka dayaysaa maxaa soo yeeri doona raxaweyna gobol kasta istaanbaya la geliyay ciidamada ma caasimada qad jafir haday yeedho Soomaaliya dambe la sheegay hamar way huraysaa intaas ma iga haysaa warkaygii inuu xaqiiqi yahay xasan cali khayr fiiri ra'iisul wasaariyaha Soomaaliya ninka murusada ee for culus qormada uu soo dhigay aad u dhageyso shirka golaha wada tashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dalku wajahayo hubanti la'aan siyaasadeed iyo duulaan shisheeye oo ay Itoobiya ku soo qaaday badeena waxaan madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ugu baaqaya in ay mas'uuliyad iska saaraan samata bixinta dalka danta guud ka horumariyaan dantooda gaarka ah kana fogaadaan muddo kororsi abuuraya khilaaf hor leh xasilooni la'aan iyo hubanti la'aan siyaasadeed siina kala dhantaalaya midnimada iyo wadajirka dalkeena iyo dadkeena qayre qormadiisa wadna sharciyadu waa ruuxda dawladnimada waxaana bixiya dastuurka dalka iyo sanaadiiqda doorashooyinka khibrad nagu filan ayaan u leenahay awaaqibka muddo kororsiga sharci darro ah kaasoo qatar ku ah geedi socodka dawladnimada midnimada ummadda xasiloonida dalka iyo amniga qaranka jidka kali ah ee maanta dalka iyo dawladnimada Soomaaliyeed u furan waa in laga fogaadaa muddo kororsi hor leh degdegna loo qabtaa doorashooyinka dawlad goboleedyada oo waqtigoodu dhamaaday lagana wada heshiiyo doorashooyinka federaalka si doorasho wadar ogol ah loo dhanyahay ay dalka uga dhacdo May 15 2026 May 2026 ugu dambeyntii si loo samata bixiyo midnimada dalka iyo wadajirka ummadda waa in xal waara loo helaa tabashooyinka Puntland lagana qayb geliyo geedi socodka dawladnimada iyo doorashooyinka qaranka si looga fogaado wax waliba oo sii kordhin kara khilaaf kala shaki iyo hubanti la'aan siyaasadeed xasan cali khayre anigu ma isku jaamacadan ka soo baxnay oo goormeen kugu adimaayay soo kuma dhihin Puntland on joogin beesha caalamku waxay dheen xasan sheekh maxamuud balcan baacuuri waxa wadid dastuur waa eber ma ku dhihin miya wadar ogol heesan ka soo saaray xataa anigaas kula hadlaya wadar ogol farmaajo muxuu kula wadar ogol Abdurrahman Abdushakur shalay muxuu lahaa Puntland hala doono Abdurrahman $52,000 uu qaataa bishii damul jadiid uu ka qaataa mucaarad kuma aan hadda hubkana inay ka dhigaan ay rabeen laakiin macni Puntland hala doono markuu leeyahay iyagu u danaynaya because waxa wadiin oo dhan Puntland hadaysan imaanin ma shaqeynaayo waay warniyo aniga duruustaydu waa saashataa maxaa ka qaldan haye dawlad goboleedyadu degdeg doorasho u aadaano Abdurrahman Maleey xasan cali khayre ani maxaan ku dhahay caalamku waxay dhaheen dawlad goboleedyada mandate-ku ka dhacay sanadkan inta ka dhiman inay mandate-kooda soo cusboonaysiistaan doorasho ay aadaan dadban xasan mid dadban ma ogolaya maya muxuu la taagnaa doorasho dadban way dhamaatay kabishi doorasho dadban dariya ka diiday doorasho macni dadban waa diiday doorasho dadban macni yani dani galba dhexe doorasho qof iyo cod ah Puntland waa u diiday shacab xor ah oo doorasho galay danina doorasho dadban u aaday adigana doorasho qof iyo cod ah rabtaa kuwa kalena uma ogolid mid dadban xagee u socotaa caalamka marka waxay ku dhaheen aan ku dhahay dawlad goboleedyadu doorasho degdeg ah aadaano mandate-ka soo cusboonay sanadkan inta ka dhiman xasanna 2026 ajandii doorashada idinkoo ku soo wada heshiiyay midna aan maqnayn October gudaheeda laga rabaaya lagu dhahayaan ku dhahay isu imaatikana pressure Soomaaliis jacayl ma yaalo pressure labada dhinac la saaray waay haddii kulankan uu fashilmana waxa weeye
doorashada roadmapka beesha caalamka ayaa hogaamin doonta xasan wuxuu ka mid noqon doonaa sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kale oo saamilayda lagu soo dari doono oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kale oo bulshada rayidka habriyi buraanburayay kulli kuwii batarka dheelayay hooba kuwii dhahayay hatta qaniisyada la keenaya kuwa isqarinay qaniisyada baarlamaanka noogu jira way imaanayaan Soomaali marka runtaasaa ka maqnay waxba islama haya Xasan Sheekh Maxamuud laakiin Xasan Cali Khayre Ethiopia oo badeena qaadan rabto yiri ma ogtahay akiid laakiin how about Firaacinta Masar wax ma ka sheegi kara miya may diyaaradda dul maraysa yani raxweyn nacayb ciladaasuu qaba isagana General Tima Cabdi ninkii markuu leega iyo afgooya damacay inuu isbaarooyin ka qaado xil ka qaaday waay markuu ra'iisul wasaaraha Tima Cabdi idaacadu yimaad isagana dhibaato waxay ku haysataa hawiyism shabeellada hoose arma warniyow Xasan Cali Khayre mursadaha ka dhalatay ayaa shabeellada hoose iyagoo digil sheeganay lagu soo dhaweynayo hadda ma fahmaysaa ina ogaatid way taas galladii bay sheegteen galladinimay ku joogeen shabeellada hoose adii lagu warsan maayo marka shabeellada hoose sidii Axmed Diiriyo oo adii ka murqo kuuskuusan oo Saleebana shaaday nafta uga baxday war shahaado adduunyada waa ka tagaysa Axmed Diiriyo yabohan aabiisi war shahaado afayeenka wiye shahaado shabeellada hoose war shahaado shabeellada ay nafta kaga baxday hal igu duugu yiri walba waafo waa diiday iyo digil aw marifle ninkii biimal general waafo laguma duugayo yiri laguma aasaayo amay hada ma fahmaysa sanduuqay galiyeen waxay u direen meydkiisii meeshii go'sada iyo doofaarka ma isku ereeriyay meeshuu ku duugan yahay hadday shabeellada isku duugaan awowgeena ku duuganayna dhiilahayn hadana waayo jiingad meeshay maalin ka dhistaan annaga iskale ku leeyihiin moogta waxaas way dhamaadeen marka waxaan doonayaa dhux laguma soo jiidi karo buur dhadhaaba ah dhulna ka culus dhul waxaas lagu dhakriyo dhaanis gabadheed xisaabta meeshaas ay ku joogtaa Xasan Sheekh Maxamuud iba furka shirka waxa shuruud looga dhigay wajiga koobaad heshiis iyo sacafin waxa ka horeeya annaga dhoocilo isharuufa ma nihine dawladnimaan ka hadlaynaa waxbaan isku darsanay awood qaybsiga ka sheekay waxaan ilmahaaga iyo ilmadeertaada meelaha ku saftay dawladnimo maahan maxaan iska cafinaynaa annaga ma dhoocilo isharuufaan nahay ma dhangalow cilaan aan isku dagaalnay ya iskay kareem yu ismari baan isku dagaalnay si weyn aan wada hadlaynaa buu yirnaa meeshan dawlad fiiri annagu madaxweynayaal baan nahay adiguna madaxweynaha federaalka tahay dawlad goboleedyadu waajib ay leeyihiin federaalkana waajib uu leeyahay dawladana waxba la isku darsaday qabiili hadii la noqdana daarood iyo dir iyo danwadaag iyo digil aw mariflay iyo hawiya wax isku darsaday hada ma fahmaysaa wixii aan ku heshiinay noo qaybi aan qaybsano markaas kadib doorasho markaas aan ka hadlaynaa horta tan lafta gareen a man of spirit and an inspire mashallah Xasan Sheekh Maxamuud intaas oo mas'uuliyiin markay yimaadeen ani lafta gareen ay leeyihiin ani asaga hal mar kaliya ay aragno caashaqan degdega caashaqan dhamaan baad dhaqso igu beertay wali dhaaya kumaan arag dhigana kamaanan maqal midaan adiga ku dhigo daliil midaan lahayn buuna ka dhiga Ilaahay adiga xididada dhax qaado halbowlaha dhiig iyo dhamacda iyo dabka dashaday dhaqsaan kugu imaan lahay dhulka kala fogaaday lafta gareeno waa ku dhowrayahay soomana dhaqaaqdine iga dheerida garbasaarub soo qaatay lafta gareen marka muxuu yiri waa soo galee goobta la baneeyo isagoo saamshuutar wata waa soo galee goobta la baneeyo waa soo galee goobta la baneeyo sidii gariirkiya ku sawirada fiiriya muuqaalada fiiriya war Xasan Sheekh oo nasalaan qoor lama salaamayo
أحمد مدوب سلام مايو قود لا هو يا بي لفت قرين لي هالمر قعنت هالمر قعنت هاي قلينين رقا واي حسن سيداسا كسو هردي dadkii been ina sheegay u maleynay haye ka waran xasan sheekh maxamuud lafta garaan u gurguurtay ergu u dirsay live ka daay waa ku sheegay faan badna faan maxay iga galaan faan ilaahay baa iskale kibirna ilaahay baa leh laakiin waaqaca jira ayaan rabaa inaan ku sheego the reality meesha ay taagan tahay been iyo propaganda meel ma imaanayso lafta hal mar islaan ka dhacday war salaan ma ahane anaga dhowcila isharuufa ma niine shirka waxa ka horeeya iscafin iyo waxa isku haysana ma walahanba dawladnimo ma tahay ha baasha noo qaybi dayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digashadaadiyo dowdhaafka caashaqa dib u soo xasuustee ha igu daaline samiree dha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 d duraad diiranayda shalay diricsanayda mantanaa ku daabarto dambaa ku run sheegtee warseen u fariistaa caaw anaga gol joogtaa yaa hadli kara he yaa hadli kara caawa qaaqlayaashii who can talk over me yaa aniga iga kor hadli kara yaa aniga iga daba hadli kara finita la musica runtii way timaaday هاي واياي وعان ربا inaan kula wadaago wiilkii digil iyo mirifle Ethiopian weeye la yiri baydhabaan ka soo qabanaynaa ay dhaheen hawiye qaaqlayaashooda waa dilaynaa ay dhaheen digil iyo mirifle dad ma ahaniya bal aanu eegno hadhacdan iyo yaabkaan dhacay war hadhacdan wada جيك تحكي يا جيك عمرك بعد ده انت جيت منه الطواليت بلا سومالي انت منه ورميسن ده من كبو انا تاب فدله بان كان مو بولي جبنيما Ethiopian calan soo qaatay baydhaba laga soo qabto raxweynka ahaa baydhabaan ka soo qabanayna ay lahaayeen albaabka villa Soomaaliya saamshuutar ka watay haday aan idin tusay way جيك تحكي يا جيك عمرك بعد ده انت جيت منه الطواليت بلا سومالي انت منه ورميسن ده من كبو انا تاب فدله بان كان مو بولي جبنيما هي aniga waa ku sheegay raxweyn xarbi gashay adduunyo ma xamanaysan ku dhahay hay raxweyn xarbi galay adduunyo ma xamanayso sheekadu waa hadha telefoonada ayaan eegi doonaa hadii ilaahay uu ka raali noqdo dad baa doonaya inay hadlaan dadkaasi waxaan rabnaa inaan chance siino marka studio waa uu furan yahay qof walba ra'yigiisi iskoorkii Soomaaliya waan u jabinay hawiye been bay sheegayeen ma arkaysi xamar unukaale waa beentood lafta gareen villa Soomaaliya ma iman karo xamar xataa waa lagu xiraaya villadu jooga oo gorgortamaya jilbaha la qabsaday no buu yiri digil iyo mirifle hogaan la isku haleyn karo Soomaaliin lagu aamini karo way saami qaybsiga Soomaaliyeed hal la saxuu yiri lafta gareen waa in la saxaa saami qaybsiga Soomaaliyeed dir waxeedu waa in la siiyaa daarood wixiis waa in la siiyaa digil aw mirifle wixiis waa in la siiyaa dan wadaag wixiis waa in la siiyaa hawiyana wixiis waa in la siiyaa hawiyaha xataa qabiilo dulman baa jira oo ma arkayse la boobay iyaga nafsadooda waa in xaqooda la siiyaa buu yiri sida wacdaan oo kale sida wadalaan oo kale sida ma arkayse macnii qabiilaadkan kale oo ma arkayse la dulmiyay murusadaa ay ku jiraan iyo xaqooda waa in banaanka la soo diraa oo shaqaalihii laga eriyay dawladda Soomaaliya oo qabiilaadka hawiye ka tirsan daarood koow uu ka yahay all xisaabta meeshaas ay ku joogtaa أنا لها هي أنا لها حسابتنا